waxay maanta markii labaad u fariisatay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya darajadeeda koowaad dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysana Xasan Xanafi Xaaji waxaana maxkamadda la hor keenay eedeysana ay weliyaan qareenadii difaacayay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaashaanle dhexe Xasan Nuur Shuute ayaa ka hor aqriyay eedeysanaha iyo dadweynaha maxkamadda ka soo qayb galay eedda loo haystay Xasan Xanafi oo la xiriirtay inuu yahay horjooga al-shabaab iyo inuu ka dambeeyay dilalka ilaa 5 wariye iyo kuwa kale oo gacan ka geystay wuxuuna kadib gudoomiyuhu weydiiyay eedeysanaha inuu galay dambiga lagu soo ogaayeen kale wuxuuna eedeysanuhu sheegtay inuu dood qabo iyadoo kadibna loo fasaxay inuu jeedsado doodiisa taasoo ku faahfaahiyay doorkii uu dilalka ku lahaa iyo dadkii la fulin jiray markaa kadib ayaa xafiiska xeeraarinta maxkamadda ciidamada laga dalbaday inay soo bandhigto cadeymo ka dheer iyo qiraalka eedeysanaha waxayna xafiiska xeeraarinta maxkamadda hor keeneen markhaatiyaalka marag furay dembiyada loo haystay Xasan Xanafi iyo codad cadeymaha oo horey looga dubay Xasan Xanafi kadibna waxay xeeraalayaasha kala Muumin Xuseen Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Xuseen Cabdi Mayonge ka dalbadeen maxkamadda iyagoo daliishanaya aayaadka Quraanka in la toogto Xasan Xanafi iyo qodobada uu mudan yahay aayadda 178 ee suurat al-Baqara aayadaha 45 33 ee suurat al-Maa'ida qodobka 221 434 ee ciqaabta Soomaaliyeed la akhriyo qodobka koowaad ee ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamadda sharafta leh man la yarham xadiis buu macna way tageen dadkaasi way tageen maantana Xasan Xanafi kaligiis cadaalad tageen way lumeen sharciga iyo garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa mas'uul ka ah ku imtixaanan inay maanta ka jaasiyeen Xasan Xanafi dhibaatadii dalka Soomaaliya u geysay dadka Soomaaliya u geysay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa Xasan Xanafi Xaaji waa dilaaga wariyaasha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed maxkamadda ciidamada waxaan ka codsanaynaa in Xasan Xanafi ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah ciqaabtii ama qisaastii intii Soomaali uu dilay laakiin qareenada difaacaya Xasan ayaa codsadeen Xasan Xanafi maadaama uu qiraal yahay loo fiiriyo sifafaalaha dambiga fududeeya ugu dambeyntii gaashaanle dhexe Xasan Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ujeeddo xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha 3 2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan 28 jir ah ina Maryan Saalim Umar ku dhashay Xamar kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta isagoo dil u geystay marxuumiinta kala ah Mahad Ahmed Cilmi Ali Iimaan Sharmaake Saciid Tahliil Ahmed Mukhtaar Maxamed Hiraabe iyo Sheekh Nuur Maxamed Abkey dood dheer kadib markay aragtay maxkamadda eedii xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd 178 suuratul Baqara iyo aayadaha 33 45 suuratul Maa'ida qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad iyo kan 19aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka eedeysane Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan uu ka hor cadeeyay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in uu ka tirsanaa ururka al-shabaab gacanna uu ku lahaa dilalkii loo geystay Mahad Ahmed Cilmi Ali Iimaan Sharmaake iyo Saciid Tahliil Ahmed isagoo sheegay in uu asaga oo wajiga u xiran yahay uu kala degay gaari uu saarnaa marxuum Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo ku sii jeeda gurigiisa sidaasna ay ku dileen markay dhageysatay maxkamadda markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysane Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab tiro dhowr jeer ahna uu ku handaday in uu dili doono iyagoo sheegay in uu asaga soo wacay una sheegay in
marxuum sheekh nuur maxamed abkey uu gacanta ku hayo isla markaana dili doono sidaasna lagu dilay sheekh nuur maxamed abkey sidoo kale maraggu waxay caddeeyeen in sheekh nuur abkey ay dileen rag uu wejiga u xirnaa markay aragtay maxkamadda dembi muujinta ah codadka laga duubay xasan xanafi xaaji cabdisalaan asagoo handadaya saxafiyiin iyo dukumiintiyada laga qoray eedaysanaha markay dhegaysatay maxkamadda doodii qareennada oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo lana tixgeliyo codsiga eedaysanaha sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile shabaab gacanku dhiigle xasan xanafi xaaji cabdisalaan uu yahay dembiilo galay dembiyadii lagu soo kala oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan kadib markii lagu dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaan fursad u helay inaan weydiiye xasan xanafi inuu ku qanacsan yahay go'aanka maxkamadda iyo in kale wuxuuna xasan si buuxda u sheegtay inuu ku qanacsan yahay go'aankaasi maxkamadaynta xasan xanafi oo ahayd dhegaysigii labaad ayaa waxaa soo buux dhaafiyey wariyaasha magaalada muqdisho iyo dadweyne danaynayay inay ogaadaan siday u dhacaysay maxkamadaynta xasan xanafi intii aysan bilaaban maxkamaddu iyo intii ay socotayba waxaa ka muuqatay xasan xanafi walwal badan inkastoo mararka qaarkood uu isku muujinayo inuusan cabsi dareemayn oo uu la kaftamaya wariyaasha uu bargaranayay cabdicasiis africa SNTV muqdisho.